madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan isa soo dul saarnaa waaye wadankii wanaagiisa iyo beerihiisa iyo sharaftiisa iyo dawladnimadiina meeshan ay taallaa see u shaqaysana waa la laayahay imaashaad aad aan u faraxsanahay annaga dadkayga maamulkaaga waxaan suu qabno hoosaan u dhaqan doonaa haddii aan helno dawladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabanno dawladda dhexena ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa runtii aan idinku mahad celinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga intaasna ajar iyo xasan Allah idinka siiyo waa sharfantihiin. markaan hadalkiina dhageystay saddex arrimood yaa ii soo baxday. waxaa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay. waxaa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan. tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay. saddexdaasna aasaas waxa u ah cadaaladda. maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noola. meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaameyn. ilaahayna waa u carooday. waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadlayno. waxaan ka hadlayno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxa u ah cadaaladii aan ka tagnay. marka cadaalad haddaan ka tagnay saddexdaas aan sheegteen lama wada heli karo. waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeena maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay. magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhaxaysa oo daris wanaag leh oo dad fiican ay joogaan iyay ahayd. haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeelay dadkeedii idinkaa ah. dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin. dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo. dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado in lais ogolaado dad soomaali oo walaala ah yaan nahay. waxaa ku xigta in lais cafiyo oo lais ogolaado yaa ku xigta. intaas haddaan la helinna hadda qof ku noolaan kara marka ma jirto. marka annagu marka dawladdii dhexe ama dawladda federaalka ah waxaan kow saaraynaa wax kasta aan qabanayno dib u heshiisiin. maxaa yeelay dadku haddaysan isku calool fiicnayn haddaysan dadku walaaloobin ammaan lagama hadli karo. ammaan lagama hadli karo. marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshiisiinta. dad wanaagsanaad tihiin dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba labadaba ilaa waa magaalo Soomaaliyeed ciidamadayda qalabka sida ogaada duruufo adag ay ku shaqeeyeen. waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan ogaada waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan oo kii dhinta caruurtiisa aan dib loo fiirinayn kii dhaawacmana aan la daryeelin. duruufahaas ogaada. saasay tahayna iyagoo kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan yay oo mushahar qaadanayn yay hor taageen qoladan daalimiinta ah oo inkaarta qaba. way hor taagan yihiin waana ku dhimanayaan. 100 jeerna waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray oo ay difaaceen waa ogtihiin. yaan laga abaaldhicin. ma maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha. waxaan u soo kaxaystay guddoomiyahayga maxkamadda aawey liibaan yaan u soo kaxaystay. waa qaadicu dariiq ogaada wiilashayda ma aha. ninkaanan u taagan maxaan ku rahaa janaalkayga u taagan. ninkii soo qaban lahaana waa kana aw booliiska jenaraal saacid aawey ee sambaloshe waa raggaan wey. haddaa aragtaan nin lacag idinka aruursanaya waa la wada dagaalaynaa. diyaar muu tihiin?
annagaa mushahar siisanayna ciidamadeenna ma maqlaysaan ninkii wax ka badan raadiya ninkaanaa u taagan yarow yaa u taagan ma garat tiiraana sugaaya maxaa yeele qaaducu dariiq diinteennaa diidday annaguna ma ogolin ma maqlaysaan jidka ka baxaya halkan oo ilaa baydhabo tegaya baryahan o dhan baan ka shaqaynaynay nin ciidan darays qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna insha allah mushaaharadooda annagaa meel saarayna qofkii dadka dhiba marka waa cadow soomaaliyeed waa cadow islaan weeye dowladdaani dowlad xoog ku timid ma aha waa dowlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye awooddan idinkaa iska leh annagu ma lihin annagu waxaan idin nahay adeege may maqlaysaan waan idin adeegnaa oo keliya waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagalay inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya insha allah waxaan idin sheegayaa anugu 4 sano ku xigta shaqadeeda ma aha maanta shaqadeedu tahay maanta ma maqlaysaan uma hanqaltaagaya 4 sano soo socda iyo wax ka dambeeya maanta in wax la qabto idinkana ay gala shaqaysaan intaas ma yeelaysaan